وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. masjidka magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay. Xafladan ayaa ka muuqatay arday ka qalin jabisay Quraanka Kariimka qolkii Eebe. Kulankan oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo oo diin, macallimiin, waxgarad iyo waalidiin. Sheekh Axmed Buraale oo ka mid ahaa culimadii xafladda ka soo qayb galay ayaa waalidiinta iyo macallimiinta ku booriyay inay sii wadaan ku dadaalista ubadka Quraanka Kariimka baristeeda. Wuxuu si gooni ah u amaanay macallimiinta iyo waalidiinta magaalada Wilmar oo uu sheegay inay tahay maanta maalin aad u farxad badan maadaama indhihiisu ay qabanayaan arday aad u fara badan misna bartay Quraanka Kariimka. ويبقى كسوة بحي إن شاء الله تعالى إلهي وحنا نصيب نيسي إلى المعلمين والأرسال الأولوب الأهشان قويقين أوصنا الأهشان وجانس بدنا ويقوسوا أغاقي وضطك الإلهي مركز الدلال إن شاء الله تعالى إلهي أول لقى وقوان ورد لقى قبطي إلهي وإنتنا حافظة صوبح لمانتا ويقى فربرتين وانتا وحدو قاتا إلمي فربرتا معلم سومالي وحيقول القرآن إلا نكتائي معلم haddaad farbadato ilmahaaga ogow waa macallin baa tahay maxay leedahay wax akhrisateen baa galay kuu dhiman ilan ilaahay markuu ka warramayey wuxuuna yidhi ilaahay markuu inaga soo bixiyey caloosha laa taclamuuna shay-an wawaladii akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an mar haddii caloosha aadan waxba ku aqoonin markuu ilmahaagu farbarto horta qur-aanka nus baad baratay inuu akhristoon baa u dhiman kolkaa marka jazaakumullahu khayran. من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء maamulaha masjidka Wilmar Minnesota macallin aadan ayaa waalidiinta ka codsaday inay il gaara ku eegaan macallimiinta oo ay la shaqeeyaan maadaama macallimiinta ay yihiin kuwa laga dhaxlayo Quraanka. Faaduma Yuusuf oo ah macallimad wax ka dhigta masjidka Wilmar ayaa dhinaca waalidka ka hadashay. oo noqon maxallijada wanaaga xagga wanaaga arka qofka bini'aadanku waa bini'aadan daliico uu yeelan karaa xogaa qoloc yar uu yeelan karaa marka qofka qoliciisa ha fiirsan laakiin muhiimadda uu nolosha ku leeyahay inaan aragna ayaa u muhiimsan muhiimaddu waa inta marka maxaa la jiray macallinkuna wuxuu bixinayaa 25% xagga waqtigiisa ayuu bixinayaa inta kale 75% waxa laga rabaa waalid hadaatiyin idinka idinka rabaa cunigiina inaad soo diyaarisaan cashirkiisa la soo diyaarisaan waqtigiisa soo diyaarisaan on time ahaataan macallinka la shaqaysaan macallinka hadduu waalidkuusan taagneen uusan diyaar ahayn macallinkuna dee 100% ma buuxin karo maasha Allah khayr hasi macallinka waqtigiisa ugu badan uu galiyay baan dhihi karaa 12 hour ka badan ayuu waliba galiyay dhihi karaa ilaa 11 habeenimo sometimes ku gaarayay khayr Allah siiyo asagoo reer iyo nolol gaaraba la xitaa ilmihiina iyo ka hormariyo wax walbaba maasha Allah tabarakallah inta waxa dheeraan sii dhihi lahaa xagga waalidiinta waalidiino iskuulka waa aragteen macallin haddii uu dhib idinkaga imaado oo aragtaan macallin kale number kuma dhahaayo macallinkaas macallin xun waaye cunugaa waa ka bixiraa waxaas ma dhahayo marka macallin wuxuu ku leeyahay qofka uu fiican yahay marka ilmihiina sifa ay ugu duceeyaan markay weynaadaan ama ay ugu abaalgudaan macallimiintooda macallimiinta u duceeya mar walba
oo markaad tukanaysaan u duceeya oo mar walba tusa ilmihiina in macallimiintu maasha Allah maqaam wanaagsan ay ka joogaan tusa sifa ay u xasuustaan markay weynaadaan waalidiinta ardayda u xasuustaan macallinkooda ay u orkaan inay booska billahi minash shaytanir rajim wa ya qaumi ma li ad'uukum ila an-najati wa tad'unani تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ardadan quruxda badan misna xifdiyay quraanka kariimka ayaa intooda badan ku dhashay magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota waxaase fursadan u sahlay waalid qiimo badan iyo macallimiin isku xilqaamay in ubadka ay baraan diinta islaamka ardadan ayaa baratay sidoo kale salaada dharaar iyo habeen waalidiin badan ayaa u taagan in caruurtooda ay baraan diinta islaamka ardadan ayaa gunaanadkii xafladda la guddoonsiiyay shahaadooyin iyo hadiyado qiimo badan taas oo qusaysa nin walba kaalinta uu galay maalintii xigtayna waxaa la geeyay meelo ay ku ciyaaraan taasoo caruurta farxad gelinaysa waxaad kala socotaan Somali Wilmar TV